لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنت كجدال maalmaha tobanka ah oo 10 dilxija ugu horeysa waxay ka mid tahay ama waxay tahay maalmaha ugu fadliga badan sanad oo dhan. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. maalmo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka jecel camalka saalixa ilaahay agtiisa looga jecel badan yahay ma lahan min haadihi alayaam maalmahaas. marka camalka saalixa oo maalmahan la sameeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba waa ka jecel yahay. camalkuna wuxuu ku weynaadaa oo qiimaha uu ku yeeshaa noociisa. camalka tiradiisa waxaa ka awlaysan noociisa. liyabluwakum ayukum axsanu camala. ilaahay subxaanahu wa tacaala marka waa ugu jecel yahay camalka la sameeyo, waa ugu jecel yahay camalka saalixa ah oo qof uu sameeyo. ilaahay wuxuu ugu jecel yahay camalka saalixa ah oo maalmaha la sameeyo. العمل الصالح واللفظ عامة. ما عمل عمل والبو صالح، عمل والبو صالح. وهذه الرية الواجبات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. واجباتك kadibna uu qofku uu ku daro wixii uu ku dari karo sunnooyina noocu doona camalka saalixa ahaado. acmaasha saalixana waxaa ugu waaweyn dikru llahi caza wajal. dikru llahi caza wajal maalmahan iyo keyrkoodba. tasbiix ha ahaato, taxmiid ha ahaato, tahliil laa ilaaha ila allah ha ahaato, allahu akbar ha ahaato. waxaana ugu weyn qur'aanka, qiraa'atu lqur'aan ha ahaato, salaada sunnada, siyaam. soomka si gaara uguma soo aroorin in maalmaha la soomo, laakiin wuxuu soo gelayaa camalka saalixa. camalka saalixuu ka mid yahay, laakiin keligiis maaha. nabiga calayhi salaatu wasalaamna ma soomin ama kama sugnaa inuu soomay maalmahan. macni waxaa loola jeedaa inuu soon ku khasisay, laakiin camalka saalixay ka mid yihiin. qofka kulligeed haddii uu soomo camalka saalixay soo gelaysaa iyo kayri daalik. qaaluu ya rasuula allah wala ljihaadu fii sabiili اllah. camalka saalixa ah waxaa ka mid a aljihaadu fii sabiili اllah. fadaa'ishiisana wax badanaa ku soo arooray iyo qiimihiisa. muslimiinta agtoodana waxaa muqarar ka ahaa
maqaamka sare uu jihaadku u leeyahay aljihaadu fii sabiili illah. markaasuu wuxuu yidhahay xataa jihaadka yaa rasuula allah, ma waxaa ka khayr badan camalka saalixa ah oo maalmaha la sameeyo? xataa jihaadka ma ka qiimo badan yahay maalmaha kale la sameeyo? ilahay ma ka jecel yahay? ilaahay ma ka jecel yahay jihaadka yani maalmaha kale la sameeyo? camalka saalixa oo qiraa'atu lqur'aan iyo tasbiixda iyo takbiirta iyo camalka saalixa kale muu ilaahay ka jecel yahay iyo jihaadka maalmaha kala? marka nabi cala sala slam wala ljihaadu fii sabiili illah ilaa rajulun kharaja binafsihi wa maali falam yarjic min dalika bishay. wala ljihaadu fii sabiili illah, waxaa ilaahay uu ka jecel yahay camalka saalixa maalmaha lama arko xataa jihaadka ilaa nin naftiisa iyo maalkiisa baxay ma ahan. nafsadiisana waa baxay, maalkiisa waa gaadiidkiisii iyo qalabkii uu ku dagaalamaya asagaa iska leh. maal fara badan wey, waa maal fara badan. marka maalkana asagaa iska leh, naftiisina waa baxay. falam yarjic min dalika bishay, waxba aan soo laaban, laa naftiisii walaa maalkiisii, ilaa qofkaas maahane. waxa kaloo ka soo haro dhan camal saalixa wuxuu ilaahay ka jecel yahay camalka saalixa oo maalmaha la sameeyo. maalmaha uu sheegayana waa cashru dilxija. marka maadaama ilaahay uu jecel yahay camalka saalixa ah, maalmaha si gaar u jecel yahay, wuxuu ilaahay jecel yahay inaan ku dadaalno. ilaahay wuxuu jecel yahay inaan ku dadaalno, uu jecel yahay. marka waa in nafteenna aan ka soo saarno dadaal, maalmahaana qiimahooda aan garanno, sidii awal la samayn jiray si ka badan, oo qofka maalmahan si gaara ugu dadaalo. waxaa ka mid ah maalinta sagaalaad tobanka. waxaa ka mid ah nabiga calayh salatu salaam waxaa la weydiiyey can sawmi yowmi carafa. markaa nabi alay slat slam wuxuu yidhaahday yukafiru asanata almaadiyata waalqaabila. waxaa ilaahay uu ku tirtiraa sanadii dhaaftay iyo sanada soo socota. sawmu yowmi carafa, nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu soo xajiyeyna ma soomin. nabiga alay slat slaam ma soomin. waa la isu khilaafay inuu nabiga alay slat slaam soomay. umu salama radi allahu canha waxay u dirtay caano, markaasuu cabbay, dadkii u jeeda. yoomataas maanta ma soomane. marka haddii qofka uu xajka isaga uu ku jiro, waxaa wanaagsan inuu yeelo sida nabi alay slat slaam uu yeelay. amaa kayrkiisa waxaa ilaahay uu ku manaystay soomka maalintaas. dadka soo xajinayana ilaahay wuxuu ku galladaystay inay maalintaas carafa ay joogaan, inay maalintaas ay carafa ay joogaan. qofkii marka maalintaas carafo jooga oo ilaahay uu waafajiyey inuu carafo uu joogo, waa qofka nasiibka leh oo ilaahay u nicmeeyey maalintaas inuu carafo joogo. dadka kaleeto oo dhulka kala jooga ama aan soo xajinna, ilaahay wuxuu siiyey maalintaas soonkeeda, oo ilaahay siiyey beddelkeeda. marka xaajigana maalinta carafuu joogaa, dikrigiisa iyo ducadiisu ku mashquulsan yahay. qofka aan xaajiga aan ahaynna maalintaas ilaahay soonkeeduu siiyey oo ajarkeedana loo weyneeyey. waa ilaahay fadligiisa, waa ilaahay deeqdiisa. marka maalintaas soonkeeda oo khamiista ku beegan sanadan, khamiista ku beegan soonkeeda yowmu carafa. inta ka horeysana qofkii soomi kara intuu awoodo uu ka soomo. camalka saalixana soomka keliya khaas kuma aha, qofba ilahay wuxuu u fuudeeyey inuu badsado maalmahaas
inuu maalmahan badsado qofba ilaahay wuxuu u fuudeeyey qofku ilaahay salaad u fuudeeyo qofku ilaahay soom u fuudeeyo dikrigana waa waxa ugu qiimaha badan mar walbaba acmaasha waxaa ugu weyn dikrullahi caza wajal dikrigana si gaara loo badiyo waxaa ka mid ah yowmu carafa dikriga bilaabanayo oo ah atakbiir takbiiraadka waxay bilaabanayaan yowmu carafa mid mطlaqa iyo mid muqayada intaba mid salaadaha gadaasheed la akriyo iyo mid mar walba qofku akhrisanayo waxaa saxaabada ka sugnaatay in ay bilowgeedu uu yahay calى cali bn abi طaalib radi allahu canhu bisanadi صaxiix min yowmi carafa maalinta sagaalaad annagu laakiin takbiirta waxaan ka bilownaa ciid aladxaa laakiin waxaa ka wanaagsan in yowmu carafa laga bilaabo maalinta sagaalaad salaadaha gadaashood iyo keyrkoodba lana iska ilaaliyo in codka jamaaci laga dhigo mar walba in codka laga dhigo cod jamaaco ah oo la isla qaado oo qofna uu akhriyo dadkana ka daba akhriyaan la iska ilaaliyo sida salaadaha markaa aan tukanno tasbiixda aan sood jamaaci loogu akrinayn tasbiixda sood jamaaci laguma akrinayo subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar sood jamaaci laguma akri qof walba isaga akhrisanayo takbiirtaana waa la mid ilaa codku hugun uu yeesho ama codku uu dheeraado maaha codka dheeraantiisa in la isla akhriyey ma aha laakiin qof walbaba wuxuu u takbiiranaya linafsi qof walba nafsadiisa qof walba gaarkiisa qofna hadduu microfoonka ugu akhriyana ba'si male qofkaas microfoon ku akrinaya nafsadiisu u takbiirtay adigana nafsadaada u takbiiro adna nafsadaada u takbiiro hana ka dhigin cod la isla helaayo oo isla jira oo jamaaciya ayadoo iska ilaalina waxayna ka bilaabanaysaa yowma carafa sida saxiixan waxay ku dhammaanaysaa maalinta 13-tobnaad casarkeeda maalinta 13-tobnaad mar waa maalinta 9aad yowma carafa maalinta 10aad yowmu naxr oo iidda ah iyo 3 maalmood oo ayaamu tashriiq ka dambaysa laga bilaabo yowmu naxr maalinta iidda 10aad laga bilaabo axkaamteeda waxaa ka mid a inuu soomkeeda muxaram yahay inuu xaaraan yahay axkaamteeda waxaa ka mid a in soomkeeda uu xaaraan u yahay maalmaha soomkeeda waa xaaraan laga bilaabo maalinta iidda ee 3 maalmood oo ka dambaysa waana maalmaha iidda ah dadka ahluislaamka iidda u ah dadka ahluislaamka iidda u ah waxaa ku xigta iyo maalinta jumcada oo sanadan ay ciidul adxaa uu ku beegan yahay 38aad dhowr jeerna waa dhacdaa inay iswaafaqaan maalmo ciida iyo maalmo jumco ah haddii iswaafaqaan waxaa dhacaysa xuduurkii wujuubka imaanshaha khudbada jimcada wujuubkeeda cuثmaan ibn cafaan radi allahu canhu wuxuu yidhaahday waxaan u idinnay ahlulcawaali magaalada madiine daafaheeda dad degan degaamo magaalada madiine daafaheeda oo salaada jimcada usoo dhaadhici jiray masjidka nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaa loo idmay inay ku tukadaan meeshooda aysan jimcada imaanin laakiin annaga jimcada waa akrinaynaayuu annaga jimcada waa tukanaya yani masjidka nebiga alay slat salaam jimcada waa laga tukanaya sida awalba loo tukan jiray
keliya dadkii ka imaan jiray meelaha dhaadheer oo jumcada darteeda u imaan jiray waxaa loo rugseeyey inay ku tukadaan xaafadahooda. marka masaajid waxaa jira xaafadaha ku yaal oo jumcaha aan lagu tukan, khudbo aan lahayn, salaadaha waa lagu tukadaa, maalinta jumcadana waa la soo xiraa. masaajiddaasi marka maalintaas waxaa loo idmay in la furo oo laga addimo oo duhur laga tukado meelihii jimcaha lagu tukanayay masaajidii jaamica ahaydna jimcaha laga oogaaya, waa laga khudbeynaya, jimcana laga oogaya. qofkii marka raba inuu imaado wuu imaanaya, qofkii raba salaada jamaacada inuu duhur tukado oo uu ku tukado masaajidda aan jimcaha lahaynna wuu heli karaa. laakiin waxaan bannaanayn oo suurogelaynin in maalintaasi salaada jimcahana la daayo, duhurna la daayo. salaada jimcahana aan la tukan, qofkii duhurna uusan tukan, maalintaasi muxuu tukaday? qofkaasi maalintaasi muxuu tukaday? 4 salaadood. maalinta 4 salaadood uu tukaday. salaada subaxa, duhurkii dee waa ka tegey, duhurka waa iska dhaafay, iyo casar iyo maqrib iyo cisha. mana jirto maalin ay 4 salaadood qofka ay u noqonayso, qof muqiima oo saxiixa ay 4 salaadood u noqonayso. 4 salaadood mar la tukanayo ma jiraan. 5 salawaatin katabahunna allahu fi اlyawmi wاllayla. nabiga calayhi الsalaatu wasalaamna waxaa lagu soo farad yeelay 5 salawaat habeenkii la qaaday 50 kadibna 5 laga dhigay. lama dhihin ilaa maalin iida maahane oo waa 4 mari 4 tahay marka ma jirto. waxayna uu ka dhashay ishkaalkaas xoogaa maarata fahan laga fahmay bacd alaahaar soo arooray. wuxuu yidhaahday cabdullahi bnu zubayr radi allahu canhu, waxaa isku beegmay maalin jimca iyo maalin iida, marka jimcadii na tujiyey. wuxuu yidhaahday waxaan sugnay jimcihii, ciidiiuna tujiyu yidhi amiiru اlmu'miniin cabdullahi bnu zubayr xilligiisii. amiiru اlmu'miniin cabdullaahi bnu zubayr. ayb amiiru اlmu'miniin uu ahaa. ka gadaal yuu ka dambeeyey cabdullahi bnu zubayr yuu ka dambeeyey. soo da ya mucaawiya muu yidhi akhana maya mucaawiyatu bnu man cabdullahi bnu zubayr ya mucaawiyatu bnu man mucaawiyatu bnu abi sufyaan miya may kaas ma mucaawiyatu bnu abi sufyaan ma waa adagtahay lama garan karo. ya la cabdulmalik waa ka dambeeyey. marwaanaan la dagaalay kadibna uu yidhi cabdulmalik aa dhammaystiray, waa la dilay cabdullahi bnu zubayr. laakiin cabdullahi bnu zubayr ka hor uu amiir ahaa. yaa markaa uu ka dambeeyey yani amiiru اlmu'miniin mucaawiyat bnu xakam. la jazaak alla khayr. marwan bnu xakam wey. hay labadiina yaziid ibnu mucaawiya ibn abi sufyaan adna saasaa dhehi lahay. yaziid ibnu mucaawiya amiiraa ka dambeeyey, ma taqaanaan kaas. hay jazaak allah khayr. hada akha sheekh mucaawiyat bnu yaziid ibnu mucaawiya
jazaak allah khayr yani mucaawiya radi allahu canhu waxaa ka dambeeyey wiilkiisa yaziida yaziidna waxaa ka dambeeyey wiilka yaziid oo mucaawiya la dhaho mucaawiyat bnu yaziid nin saalixuu ahaa wanaagsan muddo yaruu hayey kadibna ikhtiyaarkiisa uga tanaasulay ikhtiyaarkiis uga tanaasulay 20 jirna waa ahaa waa 20 jir ikhtiyaarkiisa uga tanaasulay khilaafaadkii waxaanu arkay qofkaa rabtaan muxuu yidhaahday u dhiibta isagoo lala mubaayacooday haddana wuxuu yidhi qofkaa rabtaan u dhiibta kadib uu markaa cabdullahi bnu zubayr markaa cillay ahayd cabdullahi bnu zubayrna cidna kuma bixin dad waxaa jira idaacadaha ka hadloo yidhaahda cabdullahi bnu zubayr wuxuu ku baxay kada wa kada cabdullahi bnu zubayr cidna kuma bixin waa been markuu khaliifada uu noqonayey waa mar uusan khaliifo jirin wailaa cabdullahi bnu zubayr cidna kuma qabsan khilaafada asagaa lagu qabsaday asagaa lagu baxay asaga cidna kuma bixin taas waa in la fahmo wey marka cabdullahi bnu zubayr radi allahu canhu waxaanu shaahidka waxaa weeye aharka waxaa ku soo arooray wuxuu tujiyey iid khudbadii iidda wuu khudbeeyey iiduu tujiyey kadibna waxaa waa sugnuu yidhahdo jimcihii cabdullahi bnu zubayr xaggee fadhiyey saldhig xaggee u ahayd cabdullahi bnu zubayr xaggee saldhig u ahayd jazaaka allah khayr maka marka makuu joogay isagaana amiir ahaa marka waa sugnuu yidhahda kadib nooma soo bixin ilaa casarkii laga gaaro bes marka dadaa waxay ka fahmeen in salaadii la ilqeeyey nooma soo bixin ma waxaa laga qaadanayaa lama tukan nooma soo bixin ma waxaa laga qaadanayaa muusan tukan lama qaadanayo waana waxyaabaha khaladkii ka mid taha nusuus maaragtay saxiixa oo sariixa oo qaطciya nusuusta maxay ku caddahay oo mutawaatir ay ku tahay oo qaطci ay ku tahay in fii kulli yowm walayla 5 salawaat sidaas ma صaxiix sariix wey qaطca ma waxaa looga tegaya marka ixtimaal saxaabigaa saa sameeyey waxaa suuragala la loogama tega marka kuma cadda xataa aharka inuu cabdullahi bnu zubayr salaadda uusan tukan ama ha tukanina uu yidhi bal waxaa laga fahmayaa inu dadku inay tukadaan ay rabeen waa sugaayeen asagay sugeen kadibna asagu ma soo bixin waa ilaa haddii ictiqaadsanaan lahayn inaysan salaad jirin waa kala dareeri lahayn mana dhihin cabdullahi bnu zubayr kala dareera dadkuna ma kala dareerin asagaa soo bixi waayo ama asagaa soo bixi asaga inuu meel kale aadaa laga yaabaa inuu meel kale ku tukaday inuu cudurdaar kale lahaa xataa asagu ma tukan lama dhihin marka maaqaa wax qaba waa qowl maaragtay marduula qowl shaad ah oo munkara wey qowl shaada oo munkara in la dhaho maalinta iidda iyo jimcadii isku aado salaadaha 4 ha la tukado salaad duhur iyo jimcana meesha ha laga xadfo waa munkar salaad maxduufa ma jirto 5 salaadood mar walba waa haabita jazakum allah khayr tafadhalu subxaanaka wa taala